السلام عليكم وهذه سلامة يا أنت مقلسو وحاد وحماي فلكي فوش حماي oo ka dhacay ex control oo lagu xasuuqay ummadii Soomaaliyeed oo loo kala aabayeelin ilmo hooyooyin odayaal maatooyin wax laga reebtay ma jiro waxna xadin lagu reebay waxna soo xasuusiyay falalkii ka sii horeysay ayuu soo xasuusinayaa meeshaasna waxa ka soo baxayso in dalka Soomaaliyeed aan nabad loo reebo dad waxa jira nabadiida nooc walbo ee ahaataba aad baa u xumaay dadkaas waxana markaa u tacsiyeenayaa ehladii qaraabadii ee ka geeriyoodeen oo tacsiyeenayaa ummadda Soomaaliyeedna oo tacsiyeenayaa waxaan meesha uga jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed ilaahay inuu ibaatada naga qaado ibaato adiga aan gacmahaada kula imaan ilaahay kuma keenayo run ahaantii eedda waa inaan ka saarnaa ibaatadan waa ibaato annaka aan la nimid ma ahan mid cirka nooga yimid waxa laaynayo waa Soomaali waxa la laaynayo waa Soomaali ma inaan meel kala aadno nabadna ma sahlano Soomaalida awal baxay guriga si loo iso wuu adag yahay laakiin si loo dudumiyo wuu sahlan yahay wadalkan annaka iska duduminay si sahlan ayaa iska duduminay annagoo nabad haysano nolol haysano waa iska duduminay maanta waxa loo baahan yahay in annaka dib u isano nabadii qof ku imaanayso oo dalkaada nabad kaaga ilayso ma jirto ummadda Soomaaliyeed waxa ku baraarugteen in nabad soo celinta Soomaaliyeed ay tahay mid annaka ka baahan yahay oo qof kale looga baahneen shisheeyaan ka sugeen dal daris baa ka sugeen 30 sano ayuu dagaalka nagu socdaa fool xumo ay nagu tahay ummadeena in 30 sano ka bacdi aan maanta ka sheekeynayno xasuuq waa fool xumo dadka Soomaaliyeed waxa la hudada laga kaco wixina gaari waa min gaareenba inta harsan ummad in laga qabto waa cadawga meel walba joogaanba waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed dibka ugu weyn waxaan soo gaaraa waa dad qabyaalad nimanka argagixisada waxay ku hoos gambanayaan qabiil iyo qabyaalad ay ku hoos gambanayaan haddii waxaan qabiilka qabyaalada jiri lahayn nimankan gabasho meel ka helaya ma jirto ummadda Soomaaliyeed wadada laga kaco intii la xasuuqi karay oo umad la xasuuqi karay waa la xasuuqay hooyo inta laga oysii karay waa laga oysiyay 30 sano ka bacdi waxaan inay sii jiraanba ma waahanba dawladana waa in shacabkeeda ay badbaadisaa dawlad kaliya wax ma qabato ma walba in dawlad ku hayna male in dadka kulligood gacmaha is qabsadaan wixii ib ku haayo iska wada qabtaan ibaatada joogsamayso haddii gacmaha la iswada qabsan aad ba idin rajaynaya